بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. إلهي باوين روحي آمن أود له waxaan jecelahay maanta inaan in yar ka idhaahdo arrin maalmahanba warbaahinta isla dhex maraysa oo ku saabsan wafdigii xisbiga qaranka ee wadani uu ku tagay magaalada Nairobi oo dadku ay sawirro kala duwan ka bixinayaan. wafdigu wuxuu inoo sheegay in ay arrimo badan oo danta qaranka ay u tageen magaalada Nairobi oo ay ka mid yihiin abaaraha oo ah dhibaato weyn oo ummadeena haysata oo ay ka mid yihiin xoolaheena oo la xidhay oo ahaa laf dhabar dhaqaale una baahan in arrimaha laga howlgalo. Soomaalidu waxay tiraahdaa muslimna run sheeg muslimna run naga qaado. waxa weeye dee maadaama xisbi qaranna uu yahay xisbi qarannada waa hanti qaran hadalka ay sheegeen dee kolle anigu sidiisaan u qaatay. waxaan ku beeneeyo oo amiiska soo saaray oo leeyahay waa beentiina ma hayo. waxaa jira sawirro photoshop oo badan oo soo baxbaxay oo dee laga samaynayo guddoomiyahoo la fadhiya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. aniga waxaan rumaysanahay inay photoshop yihiin oo aanay run ahayn. kuwaa laftigoodana maan rumaysan. marka anigu sida ay xaqiiqiga tahay oo wafdiga rumaysan hadallada ay ku hadleen iyo barnaamijyada ay soo dhigeen ayaa haddana markaan arrimihii usii fiirsada waxaa soo baxay in sidan wafdigu ama u dhaqmay ama u hadlaya ay gebigeeduba iyadu tahay tashakiga abuuraysa. hadda waa laga yaabaa in ay daacad yihiinba laakiin Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa nin guntu xumo inuu wax qarsanayaa la moodaa. guntu xumaan baa meesha ka muuqata. sababo badan baanan ka fakiray oon aad uga fakiray laakiin kuwa muhiimku baan ka soo qaadanaya. ta koowaad aynu isweydiino horta xoolaha maxaa loo xidhay? dadba waxbay soo sheegaan. qaar baa halkan hub soo sheega, qaar baa yidhahda hubka Yemen tegaya ayaa Soomaaliya sii mara, qaar baa yidhaahdaa kan kale. laakiinse sababta xoolaha loo xidhay dee dowladda Sacuudigu way soo qortay iyadoo qoran baa la hayaa oo qodobaysan oo cad. xanuun baa loo xidhay. xanuunka noocu sii yahay iyo noocu ka sii yahayna waa la soo sheegay. waxaana loo soo gudbiyey hay-adaha caafimaadka khuseeya. weliba marka aad hay-adaha sii wareysatana xanuunkaasi waxa laga helay lo Soomaaliya laga dhoofiyey oo xanuunkaa qabtay. laakiin iyagu Sacuudigu ama Somaliland ha ka yimaado ama Soomaaliya ha ka yimaado maadaama laga helay lo dhulkaa ka timid iyagu waskugu miday waxay yidhaahdeen xoolahaasi waa naga mamnuuc. marka horta qodobka koowaad waa kaa. haddii la doonayo in la daweeyo oo Sacuudiga lagala hadlo ama cid kale lagala hadlo xoolaha la xidhay in la furo dee waa arrin caafimaad baa lagaga jawaabi karaa. yani Sacuudiga inta loo taga la odhan maayo alla waan idin barinayo waan maaragtay dad masaakiin aan nahay xoolihii baad naga xidheen dhaqaalaha naga xume waan idin baryaynaayo maaragtay noo fura dee kuma furmayaan. caafimaad bay soo dhigan qodobo 1 2 3. waxaa arrintaa ka jawaabi kara uun hay-ada caafimaada u jawaabo 1 2 3 iyaguna yidhaahda tallaabadii laga qaaday sababihii wixii oo dhan halkaa oo la gudbiyo. marka horta xoolo in wafdi iyo 2 wafdi iyo 3 wafdi iyo xitaa wafdi dowladda Soomaaliland ka socda hadduu tago dee xoolo la soo furayaa ma jiro because marka hore aanay ahaynba dariiqii lagu xidhay. qodobka labaad ee muhiimka waxa weeyaan kaba soo qaadba bal haddii wafdigani xisbiga wadaniga ee qaranka ee wadani uu intuu wax isbeday isiri malaha idinkaaba wax qaban kara ee taga. horta intaan wafdigu dibad u bixin waa inuu la sii fadhiistaa wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dadkii kale khuseysay maxjarkii iyo dekadii iyo ciddii kale si uu u ogaado oo bal waxaan lagu soo xidhay iyo waxa laga yeelayo. yani ilaan cirka wax kama soo dejinayaan cidina iskaba dhaaf wadani xitaa hadduu xisbiga kulmiya tago xitaa haddii dowladdeenu tagto xitaa haddii madaxweyneenu tago waxba lagama soo qaban karo because arrimo caafimaad baa loo soo xidhay. arrimaha caafimaad dad caafimaadun baa ka jawaabi kara. marka horta taasi waxay shaki gelinaysaa sideeba markaa 4 qof intay israacaan oy maaragtay dee dhoofaanuun xal u soo helayaan. taasi waa mid. qodobka labaad ee muhiimka waxa weeyaan dee Sacuudigu xaggaasuu inaga xigaa. hay-addii soo xidhayna xaggaasay joogtaa. Jidda iyo Riyaad iyo Dahraan bay xafiisya ku leedahay. Nairobi xafiisya kuma leh. marka xitaa safaaradda Sacuudiga Nairobi joogta xataa hadday isdhahdaan la kulmana safaaraddu shuqul kuma leh. wasaaradda arrimaha dibadda shuqul kuma leh. marka maan fahmin xoolaha Dahraan laga xidhayo Riyaad iyo Jidda
sida looga furi karo Nairobi anigu runtii maan fahmin waa arrin adigu adag because meeshaba ma yaalaanba cid furi karta oo Nairobi joogta ayaan jirinba qof Nairobi jooga ama shakhsi Nairobi joogta ama kaalad Nairobi joogta oo haddii xitaa lagu eedaamo xoolaha furi karta haddii Nairobi ma joogto haddii Sacuudiga la tegi lahaa wuxuun baan odhan lahaa bal hadda inuu inkastoo ay taasina suuragal ahayn oo arrin caafimaad ah qodobka muhiimkiisna si raaca wuxuu yahay wafdiga cid xanaano xoolihii lama socon oo arrimaha la iska weydiinay ka jawaabaysa waxa aynu madaxdii siyaasadda iyo dhalinyaradii kaaliyaasha oo haydo si raacay cid xanaano xoolo ka socoto oo meesha tagtay ma jirto marka maan fahmin wixii lagu xidhay maaha warqadihii lagu xidhay ma sitaan wasaaradihii loo soo diray warqadda wakaaladihii loo soo diray Nairobi ma joogan kuwii furayay iyo kuwii xidhayay toona iyagu xanaanadii xoolaha midna maaha marka maan garan yacni inta Nairobi la tago la yidhaahdo xoolahan soo furaynaa taasi shaki bay abuuraysa anigu malhin waa beentii laakiin shaki bay abuuraysa marka shakiga inaad meeshii ka saartaan oo aad hadalkii caddaysaan ayay ku qurux badan tahay waa ayo qofka Nairobi jooga xoolaha furi karaa ila xoolaha sababtii loo xidhay way caddeen taasi halkaasaan kaga baxay taabaaraha timid waqti aad u muhiim ayay wafdigu baxeen abaaruhuna waa waqti waxayna haystaan aad u rafanaya abaarta sanadkuna kama hadlayaan waxaan kasii warwarayaa takal dambe iyo takal saddexaad in laga sii gaashaanto waa muhiim laakiin su'aal baa jirta horta marka hay'adaha caalamiga lala kulmaya ama ummadaha caalamiga ama dawladaha sidan inagu aynu haysano maaha dadku iyagoo socduun dad uma tagaano ma yidhaahdo abaaraan kala hadlaynaa inta miis la fadhiisto dadku proposal bay qoraan proposal baa la diyaariyaa sharaxan oo cad oo qeexan oo waxaad rabto oo maaliyadiisii wata oo laga sii saxeexay dalka oo cid kasta wata proposalkaasaa la hordhigaa proposalkana dowladaha loo tegey ama hay-adaha loo tegey habeen iyo laba habeen midna kuma abruuf gareeyaan waxaa laga yaaba inay yidhahdaan miisaaniyadda kala dambe ama miisaaniyadda kala saddexaad baanu ku daraynaa si kala saddexaad ama kala afraad mashaariicdaanu fulinayna uu qayb uga ahaado marka mashaariicda daama dowladda ha u soo dhiibaan ama NGO ha u soo dhiibaan laakiinse proposal cad oo la sameeyey oo miiska la soo saaray oo sharaxan oo inta bogu ka kooban yahay inta miisaaniyadiisu tahay gobollada uu ka hadlayo inta gobolle laga hadlayo waxa uu ka hadlaya wuxuu yahay ma balliyaa la qodaya ma ceelal riigagaa la qodaya ma dadka reer miyiga ayaa baabuur loo diraya oo laga soo raraya dhulkan ay degan yihiin oo loo raraya dhulkan oo degan ma lacag baa la qaybinaya ma diyaaradaha intay cirka tagaan daruuro artificial la samaynayo roob soo daadinay waxyaalo badan baa la doonaya in la sharxo يعني وان تقولون سطح نوع عدم ما لصو شرع بقول سنودين بدد على العدل هذا الشيء هدي سلا أبارك وتجيس تاس وهل كذا ينقض بخلاء منايا هيدهن عن هذه يقول الحديدنا لبنا عبيه وقيب سماع دورت وفد قال أنا دتك وفد قال الله صعب قارب بدن بابا يجا أقوم بدن ووحن يجا أقوم بدن marka de marmarka qaar kood xaban siraada hadaan siiyay meesha ku jireen ama wax kale ku jireen dadka ka aqoon badnaa baa waftiga la socda waxa loo kala yaqaan intergovernmental agency iyo interagency safaaradaha UN bangiga adduunka hay'adda IMF afartaas waxa loo yaqaan intergovernmental agency cilaaqaad lama leh NGO iyo xisbi iyo urur iyo waxba cilaaqaad lama leh mana siiyaan heshiis lama galaan dawladun bay la saxeexdaan marka haday mucaawamad bixinayso dawladda Jarmalku iyo dawladda Ingiriiska iyo dawladda Jabaanku intergovernmental agency way dawladun bay la saxeexataa hadii kale NGO caalami ayay la saxeexataa shakhsi waxba isma weydaarsan xitaa markay NGO-ga la saxeexanayso ee NGO-ga weyn oo kala lacag siinayso waxay approvalka ama ka qaadataa saamaxaadda dawladda markaa meesha jirta marka horta intergovernmental agency baa laga hadlayaa hadduu wadani tago iyo hadduu kulmiye tago midna wax kama soo dhalinayo markhaati way ka noqon karaa wada wax odhan karaan waddankaas aanu ka nimido dhibaatadaas ka taagneedo dad markhaati ka kacaya way noqon karaan laakiin waxay ka soo dhalinayaan ma jirto qodob kale isna muhiima jira wafdigu yimid wafdi haykalka intaa leeg ee miisaanka intaa leeg ee madaxda intaa leeg israacday weeye markuu yimid sidan yara iska yara kontrabanka in wax looga jawaabo ma waxa ay inuu shir jaraa'id oo rasiina la qabto in miiska la soo saaro wafdigu sidoo u baxay sidoo uu la kulmay ciduu la kulmay mid walba wixii ay ku heshiiyeen waxyaalaha soo socda iyo wuxuu dadku ka filayo in la qodobeeyo oo si cad laakiin imika
wafdigii maadaama uu si yar oo iska maaragtay fudud wixii dee uu aanu uga jawaabin ama aanu si rasiina u odhan shakigiiba abuurmaya qofba meesha uula doono ayuu ula kacaya anigu ma rumaysni oo dee maanta ma caddayn karayo malihii wafdigaasi qarannimada somalilan buu soo iibinayay iyo wax kale u tegey waayo dee waxaan ku caddeeya ma hayo odhanna maayo dee waa xisbi qaran oo hadalka intaa lagama odhanayo laakiin anigu mid un baan hubaa labada qodobay sheegeen inay u baxeen oo ah inay abaaraha ka soo talinayeen iyo inay xoolaha soo furayeen labadii qodob jawaabo lagu qanco oo cilmi ku dhisan ilaan dadkan ay la hadlayaan waa dad cilmi ku dhisan safaaradda maalin kasta waanu la shirnaa safiirnaanu aragnaa bangiga adduunkaanu aragnaa IMF baanu aragnaa dowlado kaloo caalamiyaanu la shirnaa sidan yare aynu u yaro hadlaynuuna inanka yar intu kamarada yar kusoo qaadqaada dheg 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 maanta waxaanu la shirnay wafdi hebel oo shafka inta lasoo taago dee meelna kuma shaqeeyaan markaa si shakigaasi nooga baxo oo ummadda kale uga baxo weliba aniga dee guuga jiraba oo cuqdad kama qabo laakiin ummadda kale uga baxo si rasiina oo cilmi ku fadhida wafdigu ha u baraxo oo ha sheego xoolahan lasoo furayo ciddu kala hadlay oo ha sheego xanuunadii sacuudiga uu ku soo eedeeyey xoolaha soomaalida guud ahaan oo dhanba waxa ay ka qabteen ee uula tegeen oo ha sheego cidda xanaanada xoolaha ee warqadda loo soo diray waxa ay kala shireen wafdigu haddii kale shakigu wuu sii badanaya qofba meel buu la ordayaa meel aynaan rabin bay nala tegaysaa is-eedayn badan oo laga yaabo wafdigu inaanu u qalmin ama aanay maaragtay waajibkooda ahayn baa dad ku odhanaya anigu wafdiga hadal xunna ku odhan maayo laakiin waxaan sheegayn labadaa qodob inaanay wax cuntama oo waafiya oo dadku ku qanco inaanay miiska soo saarin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.